dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika qayb ka mid ah ayaa waxay u istaageen inay dadka ugu yeeraan wanaagga kana reebaan xumaanta. Kooxdani waa koox dhalinyaro ah waxaana lagu magacaabaa Al-Ihsaan. Waxay marti qaadeen odayaasha magaalada Johannesburg, culamaa diinka, waxgaradka iyo qaybaha dhalinyarada firfircoon ee magaalada Johannesburg. Kulankooda ayaa ahaa si ay culimada iyo waxgaradka ula wadaagaan waxyaabaha ay jecel yihiin inay qabtaan. waxyaabo badan ayay qabteen sida ay ku sheegeen madashan ee dadka ugu soo bandhigayeen waxqabadkooda. dhalinyaradan intooda badan waa kuwa xoogsata oo shaqaysata. mid ka mid ah dhalinyaradani ma ahan baagamudo, waxayna u istaageen inay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ka wacyigeliyaan balwadaha kala duwan. sidoo kale waxay qayb ka qaataan horumarinta nadaafadda xaafadda Soomaalida ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. sanadkii tagay ee 2018 waxay qabteen kulamo dhowr ah ay ku wacyigelinayeen dumarka. ugu horeyn waxay u sharaxayaan culamaa diinka waxyaabaha ay tiigsanayaan iyo hamigooda sida uu yahay iyo waajibaadka ka saaran dhalinyarada kale maadaama ayaga ay yihiin kuwa shaqaysta dadkoodana anfaca ayna doonayaan inay wax badan ka qabtaan xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika oo waayadii dambe laga soo deerinayay isla markaasna qaar badan ay u weecdeen dhanka iyadoo 90% ay yihiin inta badan dhalinta ku nool dalkani Koonfur Afrika kuwa xoogsada oo shaqaysta ayaa haddana waxaa jira qaar kale oo dhalinyaro ka mid ah oo iyagana balwada la dhunta. ugu horeyn waxaa la hadlay odayaashii iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankani. mid ka mid ah dhalinyarada kulankani soo qaban qaabisay hadaladiisii waxaa ka mid ah odayaasha magaalada. waxaa aad iyo aad u faraxsanahay anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha cusub mudane maxamed cali shukri inaan waxoogaa idinla wadaago hadafka iyo ujeedada xafladan kooban aanu ka leenahay. ducada kadib ilaahay baa mahad oo dhan u sugnaatay. allah subxaana wa tacaala inaga dhigay dad muslimiina. waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed qayb ka mid ah kulligood ah waxaanay fikir dheer iyo wadatashi kadib ayaa isla garteen walba togbataakiiba rognadaaya nimayo maadaama nool nahay dhalinyaro aynu nahay wadadaas oo dhagax laga deexiyana waxtar. ragguna waxaa Soomaalidu ku maamada waxyaantara mooye waxba tarana lah. bini aadamku waxa weeyaan qofku wuxuu ku filan yahay alla kala awood bato alla kala waxtar bato laakiin waxaan istusnay maadaama aan dhalinyaradii nahay in bal dhalinyarada dacwada iyo dhaqanka wanaagsan ee suuban ee islaamka hormuud uga noqono oo dadka markaan dacwo sirno. waxaa faa'iido ku jirta lafteeda annagu aan ku ilaashano markaad dacwad ka shaqaynayso waxaa adag inaad wax xun afara la gasho. waa ninkii dacwada u sheeganayay macnaha masna sheeganayay iska ilaalinaya wax kasta oo waxa weeyaan qalabku waa noloshiisa. waxaynu isla garanay xilliga la aasaasay iyo asbaabta loo aasaasay. waxaa ka mid ah Al-Ihsaan waxyaabaha ay qabato laalayaal iyadoo awooddu ay iska kooban tahay. waxyaabaha qaban waxaa ka mid ah shirar ama maxaadarooyin inaan u qabanno qaybaha ka mid ah bulshada. bulshadooyna way badan tahay. waxaa ka mid ah dhalinyaro, waxaa ka mid ah dumar, waxaa ka mid ah odayaal. waxaanu isku daynaa mararka qaarkood kulamo maxaadarooyin inaan u qabanno dumarka oo halkan oo kale aan ku shirino dabeetana culimada allah subxaana wa tacaala ina siiyey ee fadliga badan ay uga faa'iideeyaan aqoontooda kolba ciddii aan u garanno markaa inay waxtar u leedahay oo dumarka markaa maxaadarooyin u qabanno. halkaas oo markaa maxaadarooyin aan is leenahay markaas dhaxalgal bay u yihiin bulshadeena ama dhaqankeenna ama dhibaatooyin markaa taagan in lagala hadlo dumarka annagoo adeegsanayna cid kasta oo markaa aan is leenahay arrintaas waxtar bay u leedahay ama waxbay gudbin karaan. waxyaabaha qaban waxaa ka mid ah dood wadaag mararka qaarkood in dhibaatooyinkana haysta sida daraagiska jahliga nadaafad xumada in dood laga qabto oo la yidhaahdo dadka aqoon-yahankeena qaybo ka mid ah inaan nagala qayb qaataan oo inaan ogayaale maxaa qaban karnaa maxay naga socdaan. tusaale ahaan nadaafadda oo kale xaafadeen aad bay nadaafadda ugu lidataa
حصودنا مرة بدن أنا وكاشاننا شخص الله معنا حافظة الدنيا حافظة يورك على وصلة كم دين قبل في دعوة ويومنا دعوة غير حاجة إنجليش دعوة وقع من سنة ويومنا دلالة من وجهها طبعا أنا مسؤول ما نظافة مرة كانوا أنه يعمل هاي كذا قالوا ما تفضل يباشر لغة نظيفيهم الوضع نظيفنا حنطابق لنا إن أيضاكم مجرد دينان وأركان اليرادي أو نظافين معنا حافظ نظيفين إنسان بدومي تجمد أو نص على بدومي حافظ أو نص على وردي اليرادي كل دولة نص على نظافة داس وأمر كذاتك إن فيش وقف بانو غلا هلنا هذا يتبقى بخيرها لنا يهديت هاي ذاتك كلامه أنت يا كجارو حانتك كل رجلنا والنظافة ده حاجة فرق وقف والله حتى بساعة أنت أود هذا نظافة هذا نظافة حافظة ما دام ده السلام علينا وهو السمعة بيننا معنا ذاتك حافظة اللي هو الصومالي والبدري ذكر إن هذا جواتنا لكن هذا أنا حاول أنت كم عابر حافظ أنت ما إيش كمان الصومالي سأل هذا وحنفذنا نظافة إلى غيرك عالم odayaasha magaalada Johannesburg iyo waxgaradka iyo culimada diinka ayaa u riyaaqay hamiga ay leeyihiin dhalinyaradan isxilqaantay Sheikh Maxamed Amiin oo ah imaamkii ugu horeeyay ee Soomaalida dalkani Koonfur Afrika markii ay yimaadeen masaajidka imaamka noqday ayaa dhalinyarada ku booriyay in ay arintani si horumariyaan isla markaasna aysan ka gaabinin hamigooda meesha uu tiigsanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa kulankan inuu naga dhigo dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulanka looga dambi dhaafay tamkiin iyo tawfiiqna Ilaahay ummadda siiyo muslimiinta ayaan Ilaahay weydiisanaynaa waxaa kale raacsanayaa marka dhalinyarada tallaabada ay qaadeen waa tallaabo muhiim oo loo baahan yahay waqti walba weyn dadka ka maqan inay barnaamijka kala qayb galaan waa kala aan soo jeedinayo weyn hadday dhakhaatiir tahay hadday ganacsato tahay wixii ay qaban waayaan in lala qabto laguna kaalmeeyo wanaagga sheekhyadii iga horeeyey baa tilmaamay in munkarkii la iska reebo macruufkii la isfaro min ahami lwaajibaati waxyaabaha ugu waajibsan bay ka mid tahay laakiin munkarkii iyo macruufkii qofku hadduu uusan garanaynin shayga munkarka ah waxaa dhici kartaa inuu markaa qadka uu ka baxo haddii macruufkii uu garan waayana sidaas la mida culimmadu shuruudda ay ku xiraan waxaa ka mid ah munkarka qofka reebayo anyun markaa an yaclama munkarka horta inuu yaqaano wey inuu ku daraa birifqi naxariis iyo turitaan Dr. Yasin oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay saddex arin ku dadaalaan hadaladiisi waxaa kamid ah kala hay madow kala hada wadanoodi wakadii waa kala af waa kala wadanoodi waa saddexdaas saddexdu Soomaaliyeed ka maqay marka wayna waxa soo dhigaysaa oo maxay tahay wada shaqeyn horta ka bilaaba inuu in good terms aan noqotaan wada shaqeyn wanaagsan yeeltaan laba wax iska maqal waynaad wax iska maqashaan hadday wax iska maqalin dee waa waysa wada tashi wada shaqeyn wax iska maqal wada shaqeyn qofka madaxda laga dhigo you have to obey waqtigiisa u daa ha challenge garayn ha ka hortagi ha xumayn u daa waqtigiisa Sheikh Mahmoud Mohamed Adar oo ah gudoomiyaha golaha fulinta ee culimada Soomaalida dalka Koonfur Afrika oo ka hadlay madasha ay dhalinyarada soo qaban qaabiyeen ayaa sheegay in dadka ay u kala qaybsamaan laba qaybna ay yihiin kuwa qeyrka dadka fara halka qaarka kale ay yihiin kuwa sharta dadka ugu yeera dhalinyaradana ay mudan yihiin in la garab istaago laguna wacyigeliyo lagana dhiso waxyaabaha ka dhiman aqoon iyo caqli ahaanba in ka shaqeysa khayrka iyo in ka shaqeysa sharka labada beelood marka abtirna kuma timaado dhalasho dhinaca nasabka ana kuma timaado laakiin xilkasnimo iyo mas-uuliyad iyo garasho iyo garaad bay ku timaadaa midka ka shaqey ka danqanaya ummadiisa dhibaatada haysata gobolku doona ha ku noolaado ha ka soo jeedo
da-duu doona ha ahaado, aqoonta heerku doona ha kaga jiro, iyo midka duminteeda iyo kafaa'iidaysigeeda iyo turanturaynteeda iyo dibudhaceeda ka shaqaynaya, midabkuu rabiyo meeshuu raba ha ka soo jeedo, ciduu doonana ha ku aftirsado. waa labada gruub bay kala gelayaan. marka in kafada la xoojiyo marbana kuwa kooxdii shaqo dhalata natiijada shaqadeeda ka dhalataa ummaduna ay noqonaysaa. haddii inta iskaashiga khayrka isu kaashatay horumarka ay bataana ummadaasi wanaageeda badan iyo horumar bay gaadhaysaa si dhaqso leh. haddii inta xumaanta ka shaqaysaa ay bataana ummadaasi way kufaysaa mana kacayso, waa burbur baa ku imanaya. waxyaabaha kaloo dhalinyarada aan isleeyahay iyo dhammaanteen xilna saaran xilka weynana saaran waxaa weeye in macruufka faridiisa iyo munkarka reebidiisa inaan isu kaashano. nabadoon cabdulaahi xabeeb oo ka mid ah odayaasha magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo ka hadlay madasha ayaa si kaftana waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed isbarbaryaac fara badan ka muuqdo, isla markaasna loo baahan yahay dhalinyaradana isxilqaantay inay qayb ka qaataan xalintooda maadaama gudoomiyayaal fara badan laga sheegayo dalkani Koonfur Afrika. ducada kadib waxaan malaynayaa gadaasheeda waxaa ku qoran waxyaabaha ay hiigsanayaan nimankaas dhalinyarada ah ee runtii la baxay al-ixsaan ay rabaan bulshada ay u qabtaan. aada iyo aadana iyaga ugu mahadceliyaa mar kaleeto inay intaa intay soo alifaan ay isku xil saaraan, waktigooda ay geliyaan, dhaqaalahooda ay geliyaan. aada iyo aadaan ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay ajir iyo mataqaanaa aakhirada ilaahay agtiisana guridiin adduunkana sharafaad ku helaysaan inaad sidaas aad u shaqaysaan. waxaan rabaa qodobada gadaasheeda ku qoran mid ka midana soo qaato. higsigeedu waa ururinta bulshada, waxaas aad gadaasheeda ku qornayaan arkayay. khilaafaadka iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeta ah oo quseeya qodobkaasi. waxaan maalin walba annagaan aragnaa oo goobjoog aan u nahay inay nagu soo kordhaan maalin walba wax la magacaabo. maalin walba inaan yahay mataqaanaa guruub cusub aan aragno. waa khilaaf runta markaad fiiriso waxay salka ku haysaa khilaaf lagu diidan yahay wixii kaa ka horreeyey, lagu kala aragti duwan yahay. waxaan leeyahay marka maadaama hadda adinku aad qaadateen eragaasoo tiraadeen waxaan ka shaqaynaynaa inaan ummadda khilaafkeeda aan ka saarno oo aan isku keenno. hadday maamul tahay, haddii ay tahay wax wada qabsi, waxaan idinku boorinaynaa insha allahu tacaala inaydan ka qayb qaadanina ummadda khilaafkeeda ee aad mar walba noqotaan dadka tanaasulayo u tanaasulayo ummaddu inay mid noqoto wax wada qabsato. ugu dambeyn waxaa madasha soo xiray oo soo gabagabeeyey kulanka imaamka masjidka Shaafici Sheekh Shariif Markaawi, wuxuuna ugu dardaarmay dhalinyaradani isxilqaantay isla markaasna doonaya inay wax ka bedelaan qaabka dhalinyarada Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika inay dulqaad badan sameeyaan isla markaasna aysan dhag jalaq u siinin caqabadaha ay la kulmi doonaan iyo challenge-yada soo wajihi doona. waxaa xaqiiqa ah oo dhab ah ummadda dadka horumariya dhalinyaro odayaasha caqligooda loo baahay, laakiin markii la yidhaahdo awood dhalinyarada loo baahay lagama maarmo. odayaasha caqligooda u baahannahay, dhalinyarada maxaa u baahannahay, awoodoodan u baahannahay. maanta waan ognahay ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlay nabi muuse wuxuu yidhi famaa aamana limuusa ilaa durriyatu min qowmihi. durriya culimadu markay fasiraan waxay kuseen dhalinyaro yahay. nabi muuse qoladii racday dhalinyaro yahay. أصحاب الكهف إلهي محلي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أصحاب الفيل بدي قول زبير بن العوام لو يترجروها مربوص الإسلام، معاذ بن جبل سيدي يترجروها. أصحاب أنت بنصو إسلامتي وحيا يكون دارير. مرة والله يا رب عميش تفهم إسلام لا يرى الجماعة معلومة. هذا أبا هن هاي هرمر لا يرى إن كل يرجلينه أنكو عامينه إلهي سبحانه وتعالى ما تحيو استاجوام هاي إني أمتي كل شيء وحقبتانه وإنت أصل أمتك ومدهك لا يكذب مرتين. مركوحان لنا هاي بارك الله فيكم أماما هرب صعدا وحاد أبقى إن محاضر هذا قف مركي أو أرمه استاجو عدو لا يجر عدو بس هذا جيسلنا حاسد هذا جيسلنا ظالم هذا جيسلنا
هو صعد غايدني هدفنا الله قف إلهي سبحانه وتعالى غايدي ساه لك جلب مسينا محل وحيابها ومقلايو وحيابها كورمانيو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyo jaalanjiyada soo wajihi doona barnaamijka bandhiga Universal TV wuxuu inta badan ku hoolan yahay in uu wax badan ka ogaado xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika waxyaabaha ku soo kordha iyo waxyaabaha ay higsanayaan. Aydros Abdi Hassan barnaamijka bandhiga Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika.